السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan saaxiibayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan halkani waa aqoonsi TV aniguna waa Mustafa Jaadan Haruun ku soo dhawaada warar lagu kalsoonaan karo oo goordhaweed aan ka helay dhanka magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa waxa lagu yiri madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu helay nuqullo waraaqo kala duwan oo ka soo kala gaadhay saamileyda siyaasadeed ee isku haya kuraasta sare ee Soomaaliya iyo waliba xaaladda cakiran ee ka soo kordhay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya nuqulladaasi uu helay madaxweynaha Somaliland waxa kaloo ku xusnaa og oo dhowr jaha loo kala diray ku socodka madaxweynaha Somaliland og madax dhaqameedka Somaliland og culimo awdiinka Somaliland nuxurka waraaqaha soo galay madaxtooyada Somaliland ayaa ka kala yimid filla Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo waliba saamileyda kale ee siyaasadeed 48 saacadood Rooble uu qabtay Fahad Yaasiin markii ay soo dhamaatay ayaa hay'adda NISA uu hogaamiye Fahad Yaasiin Xaaji Daahir hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waxay soo saartay codsi ay u dirtay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ay kaga dalbanayso in waqti loo qabto isla markaana la kula siiyo golaha amniga qaranka si ay uga horjeediyaan warbixinta fatiran oo ku saabsan tuunka Igraan Tahliil Faarax oo iyada lagu weysanay magaalada Muqdisho markii uu soo saaray qoraalkaasi ka soo baxay NISA waxa soo baxday waraaq kale oo shaqo ka joojin ah oo iyo magacaabis ku meel gaar ah oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu xilka kaga qaaday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isla markaana ku magacaabay taliye ku meel gaar ah oo yeelato laanta nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu waxa uu shaqadii ka joojiyay agaasimihii guud ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qodobka labaadna waxa si ku meel gaar ah loogu magacaabay sareeye guud Bashiir maxamed jaamac agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana la farayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee kala dhaxaysa shaqada guud ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranku inay gacan ku siiyaan hoggaanka ku meel gaarka xilgudashadiisa qodobka afraadna waxa uu sheegay agaasimaha shaqada laga joojiyo waxa la farayaa inuu xilka ku wareejiyo agaasimaha ku meel gaarka hay'adda muddo 3 maalmood gudahooda ka bilaamaysa marka uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu saxeexo markii haddaba warbixintaasi ay ka soo baxday oo uu adeegsanayo ra'iisul wasaaruhu qodobada dastuurka ku meel gaarka ka hadlaya waxa soo baxay qoraal kale oo ka soo baxay filla Soomaaliya oo ku saxan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya markii uu arkay waraaqda sumadeedu ay tahay ra'wa xariijin 314 xariijin 9 uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ee ku saabsan shaqo ka joojinta taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka iyo sirdoonka ee magacaabista taliyaha ku meel gaarka markii uu arkay qodobka 87 sagaashanaad ee dastuurka ku meel gaarka jamhuuriyadda federaalka oo qeexayay in madaxweynaha jamhuuriyaddu yahay la taliyaha iyo horumaryaha mabaadida asaasiga ah ee dastuurka uu yahay taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida markii uu arkay 97 iyo 100 ee dastuurka ku meel gaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya isagoo danaysan muhiimadda amnigu dalka u leeyahay hay'adda nabadda sirdoonka iyo nabad sugiddu ay kaga jirto ka hortagga khataraha ay ku hayaan Soomaaliya iyo saaxiibadeedaba ku argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ilaalinaya mas'uuliyaddan ay ka saaran tahay joojinta tallaabo kasta oo dhiirigelin u noqon karta kooxaha argagixisada oo wiiqaysa sumcadda kaalinta shaqo ee laabaha amniga waxa uu soo saaray qodobadan go'aan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble in uu yahay mid balmarsan xeerarka waafaqsanayna dastuurka waxa la farayaa taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir inuu sii wato hogaaminta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtada madaxweynuhu uu ku magacaabay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa la farayaa in la hor keeno golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayo marka loo mudeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga qaranka uu yeelanayo ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu farayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha xukuumaddu inay si hufan u gutaan mas'uuliyadda ka saaran dhamaystirka howlaha doorashooyinka ayuu ku yiri war-saxaafadeedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya inta marka laga gudbay intayna cabashada Soomaaliland waraaqaha Soomaaliland soo gaaray u gudbin iyo falcelinta Muuse Biixi Cabdi uu kaga falceliyay aynu eegno siyaasiyiinta kale ee Soomaaliya waxa ay ka yiraahdeen waraaqahaasi ka soo baxay xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweyne Farmaajo uga digay inuu carqaladeeyo shaqada ra'iisul wasaare Rooble dhanka kalena waxa uu hambalyo u diray taliyaha cusub ee sirdoonka qaranka Bashiir Goobe waxaana uu yiri hambalyo taliyaha ku meel gaarka ee NISA sareeye guud Maxamed Jaamac waxaan rajaynayaa inuu Allah kugu guuleeyo xilka aad qabato ra'iisul wasaaraha mas'uul ayuu ka yahay dhammaan hay'adaha fulinta dalka oo ay ku jiraan ammaanka jiritaanka ma jiraan buu hay'adaha ammaan oo aan ka amar qaadanaynin ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa iyaguna warbartiyada ay soo saareen waxa ay ku taageereen go'aamadaas ra'iisul wasaare Rooble Maxamed Xuseen Rooble uu shaqada kaga eriyay ama kaga joojiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka haddaba qorqor oo isna maxaa uu ka yeeli doonaa qorqor iyo Cali Guudlaawe
iyagu maxay ka yeeli doonaan arrintaasi sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa isaguna wuxuu yidhi waa gole la talin oo raacsan laanta fulinta ma aha gole sifo sharci iyo dastuur leh waxaa dheer muddadii xilhaynta dastuuriga ahayd ee dowladuna waa ay dhammaatay ra'iisul wasaare iyo xukuumaddiisa qodobka 103 ee dastuurka ayaa siinaya awoodda xilhaynta iyo inta ra'iisul wasaare iyo xukuumad bedesho laga helayo waxa kale oo awood siinaya heshiiska siyaasadeed ee xilka loogu wareejiyay oo uu madax u noqday golaha wada tashiga qaranka awoodda sharci ka sokow waxa jira mas'uuliyad akhlaaqi ah oo waajibinaysa in qoyska iyo ehelka ikraan tahliil oo la afduubay lana dilay ay helaan cadaalad lagana hortago wax kasta oo lagu dalfinayo ama lagu xagal daacinayo kiiskaasi haddaba dastuurka iyo sharciyad mas'uuliyad akhlaaqi ah waxay ku waajibinaysaa ra'iisul wasaare Roble inuu tallaabo aan dib u dhac lahayn ka qaado Fahad Yaasiin ayuu qoray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sida muuqata ikraan tahliil kiiskan isaga ayuu ku cad yahay sida daraadeed waa in ninkaasi xilka qaadis degdeg lagu sameeyaa madaxweynaha ayaa waxaana uu ka soo horjeedaa qoraalka ka soo baxay mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ra'iisul wasaaraha dowladda madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya haddaba intaasi marka aynu kaga gudubno cakinaanta siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay magaalada Muqdisho waxa jira ilo kale oo madax banaan oo aanu ka helnay waraaqo markii ugu horeysay ka soo baxay filla Soomaaliya kuna taariikhaysan 6 bisha 9 2022 oo taas oo lagaga dalbanayo in mudane Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaha Soomaaliland markii ugu horeysay iyo maamulkiisu markan ay gacan ka geystaan waan laga gaadho istiijooyinka ka soo baxay taasi oo bay yiraahdeen lagaga fursanayo in gacmo shisheeyo hawshan mar kale soo galaan iyo in lagaga baaqdo dhibaato hor leh oo aan dhamaadkeeda la mahadin doonin bay ku yiraahdeen waraqahaasi dhanka Soomaaliland wararka aan sida hoose uga soo gaaraya waxay sheegayaan si jawaabtaasi loo bixiyo qaybna looga noqdo badbaadinta guud ahaan dowladnimada Soomaaliya iyo ka hortagga khatar dagaal oo iman kara in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u dirayo mas'uuliyiin kala duwan oo arrintaasi ka noqda dhexdhexaad iyo bal in ay dib hal wado u wada marin karaan saamileyda siyaasadeed ee ku loolamaya shacabka masaakiinta ah dushooda halkani waa aqoonsi TV aniguna waa Mustafa Xaaji Aadan Haaruun oo idin la socodsiinay saaxiib haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir qaybna ka noqo kumaanka kun ee saaxiib eenu halkan degal wadaagta ku nahay haddaba haddii Soomaaliland ay ku guuleysato dhexdhexaadnimadaasi ay ka soo dalbadeen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo saamileyda siyaasadeed haddii warkaasi war jira uu yahay kaalin nooc ma ayay ka qaadan kartaa Muuse Biixi ma aqbali doonaa codsigaasi uga yimid yaa si tagaya hadiiba in la tago ay noqoto maculimaa diinka ma madax dhaqameedka mise xubno ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland su'aalahaasi jawaabahooda waxaan u dhaafayaa shacabka iyo daawadayaasha sharafta iyo karaamada naga mudan kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo fi amaanallah